maanta waxaan aragnay inuu madaxweynaha Mareykanka John Biden uu ansixiyay inay isticmaasho Israa'iil hubkeeda sidoo kale waxaan aragnay inuu ansixiyay in laga iibiyo 850,000 oo hub oo muhiimad u leh Israa'iil kaasoo lagu gumaadayo dadka Falastiiniyiinta ee ku dhaqan marinkaasi Gaza 850,000 silah onayı. Lafa geldiğinde marka ay timaado inaan hadalno waxay leeyihiin waxaad gasheen dambiye dagaal oo hubka dhigis ayaa tihiin madaxweynaha Mareykanka John Biden markii ay Azerbaijan iyo Armenia islaynayeen wuxuu yidhi waxa dhacay xasuuq bini'aadantinimo oo loo geystay Armenia hadda nasiib darro waxaa taariikhda ku qortay gamcahaaga oo dhiig leh tani waa dhacdo xun oo khatar ah taasoo aan diidma lahayn weerarka lagu hayo marinkaasi Gaza iyo dadka masaakiinta taasoo sababtay inay u shahiidaan boqolaal iyo kumanaan muslimiin ku dhaqan marinkaasi Gaza dadaan waxba galabsan siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz ve maanta mar kale waxaan ku celinayaa inaan sii wadi doono taageerada aan siino dadka Falastiiniyiinta iyo inaan ilaalin doono dhulkayaga barakaysan ee magaalada devam ettireceğiz. daawadahayaga qaaliga asxaabta aan jecelnahay maxaa ku diidaya inaad markaba subscribe noo saarto like gambaleelkana aad furato si ay noogu noqoto dhiirigelin wanaagsan